السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري عاوة وهبينكي ugu dambeeyay ee aan gurigeyga ku nasan doona ama ku seexan doona saa idin sheegayba waxaan hay safar berito hadii Allah awood leh uu yiraahdo subaxnimadkii barqadii waxaan ku qoranahay diyaaradda u socota Nairobi Kenya aniga iyo hooyaday oo markaas ka imaan doonta Seattle Washington waxaan transitka iskala qabsan doonaa Amsterdam Holland ama Netherlands akhyaaray wax badan ayaa ay aragteen maanta waxaan ugu talagalay in aan gurigan u xiisi doono labada bilood ka maqnaan doono in aan idin soo duubo qolka chiefka waa soo noqonayaa halkan waa meesha aan ka soo galo oo aan iska soo maaragtay xarxariiqo ama aan iska soo maaragtay make upeeyo make upka waa iska xiiseeyaa waa iska barbaratooniya ahay balse alxamdulillah waxay doontaba ay ugu qaadatee wax uun waa isku waxeeyaa halkan waxaa ii yeelo unsi akhyaari unsigaas taariikh ayaan ka soo maray waa se usoo laaban doonaa halkan waa qol ka mid ah labadayda qol ee chiefka waxaa deganse labadayda wiil mid ka mid ah Khalid ayaa degan oo sanadkii hore dugsigii sare dhameeyay حتى ويلكيga qadarna wuu dhameeyay ma sha Allah tabarakallah qadar ayaa weyn Khalid ayaa ku xiga 2 sano ayaa u dhaxaysa sida daraadeed qadar wuxuu wax ka bartaa oo uu ka shaqeystaa caasimadda wadanka Stockholm ana waxaan deganahay Gothenburg ama Göteborg hatta Khalid oo qolkan degan wuxuu aaday aabihiis meesha walaalkiis uu hadda joogo ayuu asagana aaday oo uu maaragtay labadaas bilood ku maqnaan doona insha Allah akhyaaray aniga idima baraayo sida guriga loo hagaajiyo ama loo waxeeyo muhiimadeedana ma aha inaan maanta guri dhaqo oo aan idin tuso kaliya just waxay ahayd inaan u xiisi doono aqalkayga akhyaaray waxaan jeclahay sariirta inaan sidaan u goglado badanaa go'aas shulshulka ah ayaan maaragtay ku goglaa oo aan hoos mariyaa kuma goglo meesha caadiga ah balse waxaan ku goglaa meesha hoose maaragtay aan cidina seexanaynin qofkii raba marka uu isticmaali karaa meeshaas ayaan ku gogladaa ka bacdina go caadi ayaan sariirta ku sii goglaa qurux ayuu ka dhigayaa hadii kale waxay noqonaysaa marka maaragtay kor la saaro wuu ka gaabanayaa ama way ka halaabeen marka sidaa daraadeed inaysan ka furfurmin ku taalo sidaas ayay ku qurux badan tahay go'aan hadaa isleedihiin meeshaan ka keenay go'aan waxaan ka keenay South Africa mar aan tagay adigu dhowr sano ka hor 11kii ama 12kii labadaas mid mar aan tagay ayaan go'aan ayagoo 3 xaba ah oo kala duwan oo kala naqshado ah oo qurux badan ayaa gabar khayr Allah siiyay hadiyad igu siisay wallahi dadku way kala qiimo badan yihiin gabadhaas isiisay waxay igu siisay un yacni walaaltinimo ma ahayn gabar aan maaragtay aqoon badan aan isku lahayn halkaas waxaa saaran book Zlatan Ibrahimovic oo aan u soo gaday wiilkayga hadda ka hor marka waxa imaan doona walaalka Ingiriiska ka imaan doona ayaa dhowr bari meeshan ku sii nagaan doono anyways qolkan waa qolka labadeeda wiil mid kamid ah kan kaleetana waa idin sheegay aabiis ayuu la degan yahay marka waa kaasa qolkayga waa idin soo sawiri lahaa laakiin waqti badan ma hayo waa in aan maaragtay ayadana go'aas oo kaleeta ayaa ii saaran sariirta ma sha Allah tabarakallah saa idin sheegay 3daas xaba ayaan soo qaatay oo marba mid aan saarsadaa anyways waxa weeyaan akhyaarteeda waxaan is iri sharafta leh haddaad maaragtay waqti haysataa mac salaamee waxaa ku tiraahdaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa sii socdaa idinkana soo duceeya akhyaaray unsigaan marka aan idin sheego unsigaan waa unsi aad u caraf badan waxaan hayaa 5 sano ayaan hayaa iyadoo kaloorad weyn ay ku jirto gabar ayaa waxaa dhacday in ay iyadoo raadinaysa maxaa la yiraahdaa unsi yara ay ku wadato bac oo dadka hadba kii ka soo horbaxo waa Dubai hadba qofkii ka soo horbaxay waxay leedahay walaalay ii sheeg unsigan yaa sameeyay unsigan yaa waxeeyay ii tilmaan ala ay xal waa loo tilmaamay unsiga markii loo tilmaamay waxaa dhacday in maamo loo tilmaamay maamadii aan la tagay waan la socday gabadha laba gabdhood waxay ahaayeen in abtiilma eeda
gabdhaha marka waxaa dhacday in aan meesha ku bartay anna waa markii iigu horeysay ee aan tago aan isdhahayay alla ilaahay gabdhaha maaragtay la qabso si ay magaalada kuu kala baraan aw shopping iyo xataa u baahatid ee meelaha ku tusaan calaa ay xaal gabdhihii mid kamida waxay haysatay maxaa layidhahdaa uunsi yara oo ay rabtay markaas in qof waxaa dhacday in gabadha ay degan tahay london ayaa gabar dariskeeda asxaabta kamid ah ayaa waxaa dhacday in ay uunsi ka keensatay Dubai uunsiga asxaabtii oo dhan ayay u qaybisay asxaabtii markay u qaybisay ayay waxay ka tagtay gabadha aan ku baran doono Dubai ee uunsigan yar wareejinayso ayaa waxaa dhacday in ay laga tagay oo intii kale la siiyay oo maaragtay lagu jeejeesay ayadana calaa forjo ayay waxay go'aan ku gaartay inay uunsi jab yar oo asxaabteedii kala ka heshay in ay soo samaysato oo ay loo soo sameeyo oo ay tagto Dubai oo calaa forjo aniga marka calaa forjadii aan ku soo aaday anyways waxaa dhacday in gabadhii ay har iyo habeen ay raadinaysay qofkii sameynayay anna waa la socday marka waxaa dhacday in maamana loo geeyay maamadaasaa sameysay yiri maamadaya ursiisay maama ma adiga qofka uunsigan sameeyay waxay tiri ha aniga maama sameeyay ma ii sameyn kartaa kaloorad weyn ayay waxay ku gadaysaa markaas $100 wax yar xoogaa ka yar ayay ku iibinaysaa adiga walaashii ingiriiska degan deeqa duniya channel ayaa waxaan soo wacay iyada aad u cabta uunsigo aad u jecel aniga saas uma jecli uunsigan hadda waxaan hayaa 5 sano walaashiina 5 bilood ka yar ayay ku dhamaysay sidaa daraadeed aniga iyadaan soo wacay waxaan ku irinaa deeqoy ma kuu soo gadaa uunsi ma kuu soo sameeyaa meeshaan soo dhiiba lacag ay soo dhiibatay anna calaa forja anna waa soo samaystay anikaygii 5 sano hayaa deeqa duniya waa hore ka baxday marka sidaa daraadeed uunsigaas qisadaasaan kasoo maray aada caraftiisa u jeclaa waa caraf reer magaala kaale arag maasha allah babisidaana waxaan kasoo iibsaday Kenya 16kii markii aan tagay ayaa Mombasa kasoo iibsaday alxamdulillah waxaan ugu talagalay in afartaas xabo waxaan ugu talagalay in gabdhaha uur kale aan ku babiyo make up waa jeclahay waa iska soo gataa يا marka على أي حال وحادين إيه لها مع سلامة سفر سلامة إن شاء الله تعالى وإسلت شوقنا كرسي قصوا كرسي عن كسوة عن بحي مركي أقول ريسي عن سوفري سنشري واكاسا أخياري أنا بقول هجاتنا متجعلي محلي هذا عند كرينا متجعلي داد سواء إذين سو سمينين عند كرين يقول هجاتين يمسقول الأقوى الله هيك الله يا anyways waxaan idin leeyahay safar salaama khiyaartayda waa idin soo gali doonaa waana idin la soo hadli doonaa meeshaan tagana waan idin soo duubi doonaa wixii aan la soo kulmana waa idin sheegi doonaa akhyaaray u soo duceeyay hooyaday insha Allah taala maamo ayadana waxaan Holland ba iskala qabsanaynaa halkaasaan isku arki doonaa hooyaday ma sha Allah tabaarakallah marka sidaa daraadeed safar salaama mac salaama salaamullahi alaykum dhammaantiin